السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت لي وحيران سديتين مي في عنتين أنا ويدي وناكسن هيك سورة فيديو عصوب فيديو كمان حواي أفطر روتين كيجة تصور الرواده وحنسميه صلاة الظهر بتاجني صلاة ديان تكذي وحيرنا أذكاري تسبيح بان صغير أخرستي كده من الشكل عيان صوق علي وحروا قدير وقروح بدن وكالس كأرق أو معان بدن إن سميه إن شاء الله سؤالك wax kusoo wada diyaarsaday waxyaabihii aan qadada ka samaysan lahaa soo ugu horreyn madeebada waxay ugu jiro waa digaaga waa 4 lugood iyo dhowr wings ah soo digaagii waxaan sameeyay xawaashiyaal baan kusoo shubay milix baan kusoo shubay basbaas cas iyo saliid intaasaan kusoo shubay kadibna waxaan sameynayaa chickenkii xawaashiyaashii waxaan ku shubay aan ku yara qasqasayaa aan yar marmarinayaa soo markan chickenkii xawaashiyaashii wixii dhan baharaadkii marmariyay banaanka u yareedeena ilaa ay 30 daqiiqadood kadib aan dubi doonaa insha Allah si ay chickenkii xawaashiyaashu iskugu soo yara nastaan oo isku soo yara dhex galaan soo halkaan disiyaan dabka soo saartay biyaan ku soo shubtay baradhii carrot aan soo koostan ku soo riday wax yar oo milix aan ku soo daray baradhii carrot kana rabaa inaan wax yar karkariyo 50% markay soo yara bislaadaan ka dejin doonaa kadib la arki doontaan waa huurin doonaa insha Allah soo alaabtan halkaan ay u karkarayso halkaan waxa waaye disiyaan soo saartay dabka waxaan rabaa inaan halkaan bariis yar aan ku shiilo ma fahanteen soo waxaan sameeyay basal baan soo goostay saliid baan ku soo daray basashii soo yara shiilay basashii markii ay soo yara shiilantay waxaan ku soo darsaday tooni kabsar ku soo tumay waxa filfil qorofal hayl waxyaabahaas ku soo darsaday kadibna isku yar shiilay hadana kadibna waxaan ku soo darsaday milix waxaan ku soo darsaday xawaash aad u udgoon oo loo mindi spices hadana isku yar walaaqay intana baan maanta bariiskeyga aan ku shiili doonaa ma fahanteen soo intii markaan isku shiilay bariiska hore kaga soo daray because wax kale kuma daraayo bariiska intan baan ku karin doonaa yani kadibna waa kaasa bariiskii waan isku yar walaaqay bariiskii ma soo yara qaleeyay bariiska markuu soo qalaysmo oo soo yara shiilmay hadda biyaan ku daraaya ma fahanteen biyo afka u galiyay waa kaasa dabka dhexdhexaad uga dhigay bariiskii saas uu igu soo kari doonaa wax kale kuma daraayo intaan maanta bariiska ku karinaya insha Allah soo waa kaasa bariiskii iska soo karkaro kadibna waxaan sameeyay waxaan soo qaatay mashiinka air fryer kala dhaho waxaan mariyay saliid kadibna chickenkii aan xawaashada isla soo marsanay aan soo dul dhigtay hadda air fryerkii soo chickenkana soo shiili doona air fryerkan ku soo shiilaya 20 daqiiqo ku jiri doona air fryerka markuu soo shiilmay kadib 20 daqiiqo arki doona suuq soo baxa insha Allah soo waxa dhacday bariiskii inuu soo bislaan rabay ma fahanteen wali biyo leeyay u jeedaan soo hadda waxaan sameeyay dhexdii aan bariiska u yara baneeyay kadib aan dhexda waxaan kaga shubayaa sabiib yar kadibna bariiskii aan ka kormarinayaa sabiibka waxaan rabaa inay isku soo yara huuraan ma fahanteen soo markii isku soo huuraan sabiibkii bariisku bislaada leen ka dejin doonaa mardo insha Allah 20 daqiiqo kadib chickenkii waa soo dubmay oo soo shiilmay saambuu noqday wingsku way hilib yar yihiin soo degdeg buu xoog ugu casaaday soo chickenkii anyway saan rabay igu soo shiilmay diyaar buu yahay halkaan waxa igu jira baradhadii iyo carrotkii intaan soo yara karkariyay markii soo yara bislaan rabeen waxaan sameeyay waxaan mariyay xawaashi yar iyo saliid iyo basbaas iyo waxaas kadibna soo jeetaan air fryerkii aan ku riday air fryerkii aan ku soo dubay markaan soo dubay saanay noqdeen ma fahanteen saa quruxda badan oo jeetaan oo soo shiilmay ma sha Allah oo soo huuray yani oo soo dubmay soo baradhadii carrotkii saasi diyaar yihiin soo finally waxaan sameeyay cuntadii oo dhan miiska ku soo diyaarsaday qadadii soo halkaan waxa igu jiro waxa waaye khudrad waliin macana soo kooyay iyo 2 nooc oo cinab ah baa halka ku soo ritay ma fahanteen khudrad aad u wanaagsan tii isla ogaada naftiin iyo familkiina la ogaada hadda awoodaan halkaan waxaan ku soo ritay baradhadii carrotkii iyo chickenkii aan soo dubnay oo soo huurin oo soo shiilmay halkaan igu jiro halkaasna waxa yaalo waxa waaye sharaab igu jiro sharaabkan waxaan ka sameystay sharaab halka igu jiro 2 koob lagu cablaan halkan soo ag dhigtay sharaabka waxaan ka sameeyay waa mango iyo moos caano baraf aduun alaab dhan isku soo mushkileeyay isku soo radxay ma fahanteen idin ma tusin insha Allah one day aan tusi doonaa marka la inta tusi doonaa yani halkaan waxa igu jiro waa bariiskii sabiibkii aan isku soo huurinay waxaan korka ka soo saaray salad liin dhanaan iyo khiyaar ma fahanteen
bariiskana saasuu diyaar igu yahay. Mooska markaan waan ka iloobay ahayd gadaalaan mooska ka saaray ileen bariis iyo qado moos la-aan lama cuni karaye, muus la-aan lama cuni karaye. soo kaasa qad saasaan kusoo wada diyaariyay ahayd qadada yar fiican oo quruxda badan leh oo fudud. kadibna dee qadadii anaga saasa waa cunaynaa ma fahanteen. waa kanaalkana aan bardhadii kaaroodka isku guraaya. waa soo qadaynay bay ahayd. markaan soo qadaynay kadibna dee hadda waa inaan miiskii lagu qadeeyo aan iska tirtiraa. waa kaasa miiskii aan iska kala hagaajinaya. wixii bariis alaab dhulka ku daadatay meesha ka masax, weelasha jikada iska gee, alaabta kala hagaaji ma fahanteen. hadda xilligan haddaan nin ahaan lahaa waxaasoo shaqa iima taaleen. nimanku naagaa waaba ka nasiib badan yihiinba. gabarun baa intay cunto soo karisa ma dhowtolna meeshii lagu cunay masaxaysa. meesha miiskii alaabtii wixii dhanaan ka qaaday waxaasan ku buufiyey ahayd. waa bahal yar oo aan miisaskii waxaa ku tirtirto. kadibna miiskii aan iska masaxay ahayd oo aan iska tirtiray ma fahanteen. kadib miiskii markii aan iska masaxo iska tirtiray waxaan soo galay jikada. maanta horta waxaan rabaa inaan 2 saacadood oo kaamila aan nasto oonan waxba qabanin, sababtoo ayaantan shaqada ugu badan. kadibna cirbaha i xanuunaya, marka lugahayga inaan yara nasiyaan rabaa insha Allah. marka waxaan isdhaa intaadan 2 saacadood nasashada gelin bal shaaxii casri ahaan loo cabi lahaana iska kari. marka halkan aan bahal shaaxo udgoon macaankiisa la yaabay aan kariyay. shaaxa waxaa la dhahaa caramelized tea. meelkii idkiya idin duuba sida loo sameeyo haddaa rabtiin halkaa kasoo fiirsada insha Allah. shaaxiyaan sameeyay, falaasadiyaan kusoo shubay, halkaasaan iska dhigay ma fahanteen. marka ani maanta 2 saacadood nasanayo waxaan rabaa inaan filim ku fiirsado. intaan lugaha iskor saarto inaan filim daawadaan rabaa insha Allah. marka waxaan isdhahay filimka qalalana daawanine bal naftaada yara casuuno salool u samayso. halkan baan saloolkii ku samaysanaya. marka waxaan sameeyay disida saliid yar baan kusoo shubay, wax yar oo milixaan ku daray. kadibna saloolkii aan ku shubay dhac waaba kaasa saloolka asaaba iska soo qarqarxaayo fugfugta iska haaya ma fahanteen. kulay dadka qaar malaha salool uma yaqaanaani popcorn alla salool magaciis muxuu ahaaye daango. dadka qaar baa daanga dhaha, anaga saloolaan dhahnaa. anyway saloolka ay soo wada qarqarxay ahayd. kadibna saanu diyaar iigu yahay. saloolkii disidii waan ka shubay. kadibna disidii aan dabka kusoo celiyay. kadibna disidii waxaan kusoo shubtay 3 malqacdood oo sonkora iyo wax yar oo biyo ah. waxaan rabaa inaan sonkortaan iyo biyahan aan si fiican aan isugu karkariyo, si fiican isugu dhalaalaan ma fahanteen. saa u jeedaana biyuhu waa wax yar oo micno lahayn. adigu 1 malqacad haday ugu badato, sonkortuna waa 3 malqacadood. sonkortii biyihii iyo adi muddo 3-4 daqiiqadood baan dab dhexdhexaad ah aan ku shiilay. marka isku soo shiilmeen oo saa ay usoo xumbayso sonkortu waa fiiriyaa ma fahanteen. gacantaan ku fiiriyaa inta malqacada in yar kusoo qaado. suulka iyo murdisada dhexdoodan saas ugu fiiriyaa sonkortii. markaan arko inay saas sonkortii igu dhegdhegayso baa waxaan dabkaan ka damiyaa, saloolkiin degdeg ugu shubaa. kadibna saloolkii iyo sonkortii aan saas isugu walaaqaa ma fahanteen. kadibna wax yar baan sugaaday ilaa 10 daqiiqadood si sonkortii ay ugu qalasho dee saloolka. sonkorta haday biyo ka tahayna saloolka uu ka bushuqaaya. laazim sonkortu waa inay adeeg noqoto fadhiya. kadibna waxaan sameeyay markuu isoo qabay saloolkii madeebada baan kusoo shubtay ahayd. halkaana shumac yar baan soo daartay, koob biyo ah oo markaan saloolka aan ku haraadaan xabana waa soo qaatay. rumuudadii adduunkana waa soo ag dhigay. waa kaasaas sonkortana lagama dareemayo saloolka because sonkortiina waa cadaan saloolkiina waa cadaan, laakiin ma ujeedaan wuu isku dhagan yahay saloolka dhanba ma fahanteen. halkan aan saloolkayga yaraa jamta ka saaraya saa ujeedaanba. bahal filinana wanigaasoo waa ku tuurtay. ani filimaanta horarka amba actionka abaan daawadaa. halkan aan filin action fiirsanaya. marka maxaa la dhahay saloolkana sida loo sameeyo gabaraan saaxiibnahay waa ibarto Safiya la dhaho. thank you so much baan ku leeyahay, khayr ku siiyay saloolka ibarto waa ka helay. maxaa la dhahay videogana dee dhamaad waa intaan ku joojinaya. videoga hadaa ka hesheen fadlan like ii saara, asxaabtiina la sii share gareeya si asxaabtiina kale u qurux badan ay iigu soo xidhmaan insha Allah. daawashada videogan waa ku mahadsantihiin. intaan videoga ku xigay ka kulmayno waxaan leeyahay bye bye, see you soon, bye.